وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجبكيس وحنبار واجبكيسا وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو وعن مينو وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو وعن مينو بسم الله الرحمن الرحيم مر لبعض iyo waa macallin Zeynab Maxamuud Nuur macallimadii historyga waxaan dhiganaa casharadii chapter galaasida saddexaad ee form 3ga waxaan maraynaa markaa chapterkii 6aad ee chapter 6 waxaan ku qaadan doonaa democratic and human rights xuquuq dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka waxa ka dhageysan doontaan arday idaacadda raadiyo Hargeysa kana daawan doontaan TV-ga qaranka chapter xiisadu waxaan waa history form 3 markaasi chapter kuna waa 6 lesson kuna waa lesson 5 page ay ku qoran tahay waa 62 ee maxay tole dimuqraadiyadu marka democratic baynu bilaabi democracy and human rights waa dimuqraadiyadda iyo markaasi xuquuqul insaanka objectives ka markaasi chapterka at the end of this chapter dhamaadka chapterkan students should be able to ardaydu weynay awoodaan ay qabtaan markaasi hawlahan define democracy wayna sharaxaan dimuqraadiyad discuss stages of a democracy sidoo kalena waynay ka doodaan dimuqraadiyadda list of a principle of a democracy sidoo kalena waynay maxay ahayd toole sharaxaan taxaan mabda'a dimuqraadiga explain the human rights sidoo kalena waynay sharaxaan xuquuqul insaanka waxaan yiri chapterku waa dimuqraadi chapterkan introduction kiisa waxaan ku sheegi doonaa in ay dimuqraadiyadu ka xana qaaday wadanka Greega magaalada Athens ee caasimadda Greega markaa horta Greegu wuxuu u qaybsamaa laba magaalo mid waxa la yiraahdaa Athens midna waxa la yiraahdaa Sparta Athens waxa weeyaan magaaladii dimuqraadiga ay ka xana qaaday sidoo kale waa magaalada uu ka ifo markaasi dhaqanka Greego in halka ay Sparta ka tahay magaaladii militariga dadka reer Sparta waxa weeyaan waxay lahaayeen maxay tolay magaalo military oo dadkeeda wada military bay ahaayeen halka ay dimuqraadiyo ee Athens ka ahayd meel uu ka ifo dhaqanka Greego ay ka soo baxay dimuqraadiyadu dhammaan halyeeyadii markaasi in dhaxlay aqoontuna waxa ay ka soo bixin magaaladaasi wadanka Greega ee magaalada Athens nimanka dhaxlay aqoonta ee Greega markaasi waxa kamid ahaa ninkii sameeyay markaasi geographiga rotation of the earth sidoo kalena waxa kamid ahaa ninkii sameeyay markaasi ninkii sameeyay dhakhtarkii ugu horeeyay ee dhaqaatiirta dhakhtarkaasi waa dhakhtarkii soo saaray in maxay toole dadka uu daweynayo aan loo eegin maxay toole midab aan loo eegin markaasi qabiil aan loo eegin diin iyo cid yahay toona sidoo kale waxa ay soo saartay maxay toole ninkii lahaa la oran jiray Socrates iyo niman badan oo haliyeeya markaasi oo kamid ah Greega hadaba Sparta waa magaalada labaad ee Greega Sparta waa magaaladii maxay toole militariga bay nidhi magaalada militarigu caruurteeda waxa ay nimadeedu marka ay 15 jir yihiin waxa ay geen jireen xeryaha ciidanka dibadna waxa dhici jirtay in ay maxay toole u tababari jireen ciidan 22 jir markuu noqdo marxalad ka gudbi jiray 30 jir markuu noqdayna kaasi ka muhiim jiray markaasi xeryaha ciidanka ama xeryaha militariga maxay toole waxa ay doonayeen dadkooda ama dhalinyartooda ay adkeeyaan jidkooda dhisaan wayl halka ay dumarkooduna maxay toole ay jirwixsi u sameyn jireen iyo maxay toole ciyaaro si ay jidkooda u dhisaan waxaan yiraahdeen dumarka waxaan u dhisaynaa jidkooda u adkeenayna si ay gabadhu u soo saarto gabadh adag ayaa soo saaraysa markaasi wiil adag hadaba markaynu maxay toole mabda'a dimuqraadiga aan hore u sii gallo dimuqraadiyadu waa maxay marka koobaad waxay ka hana qaaday Greega markii dambena waxay ku baahday dhammaan adduunka kale oo dhan adduunku wuxuu u qaybsamaa maxay toole dimuqraadiyado iyo maxay toole republican dictatorship iyo monarchy
waxayna markaasi wadamada ka midka ah maxay tole dimuqraadiga example wanaagsan waxayna ugu aad Somaliland Democratic Republic maxay tole jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Somaliland ba markaasi tusaale u soo qaadanayna in boqortooyada monarchiska ah ee maxay tole ama dhaxaltooyada boqortooyada Sacuudi Carabiya oo amada wadamada Scandinavian-ka oo dhan ay iyagu leeyihiin markaa boqortooyooyin maxay tole waxay soo sheegi doonaa markaasi mabda kale oo la yiraahdo emperador ay isticmaalaan markaasi dadka indheerta ay ku dhaqmaan dadkooda oo emperadoriyad la yiraahdo in dimuqraadiyadani maxay tolay maxay mabdaeedu yahay ma xuquuqda bini'aadanka ay siinaysaa inuu qof kasta noqdo xor maxay tolay haduu doonayo inuu job samaysto inuu si xor u samaysan karo haduu doonayo wax barto inuu sidoo maxay tolay xor u baran karo inuu si xor u dooran karo sidoo kale waxaan idin markay xilliga election ka gaadho dhammaan muwaadiniinta oo dhan iyaga soo go'aamiya cidii ay dooran lahaayeen marka ay dimuqraadi mabda uu ka dhaco madaxweynaha waxa soo doorta mujtamaca iyagana soo go'aamiya cidii u talin lahayd in halka kuwa kale boqortooyada ah la kala dhaxlo markaasi aanay ahayn mid ay doorteen ama ay xorriyad haystaan in dimuqraadiyadu bay nidhi maxay tolay adduunka way ku baahday maxay tolay waxaana ku dhisan tahay dawlado wada hadal iyo maxay tolay iyo fikrado in waxaanu markaa sheegnay maxay tolay dimuqraadiyadu inay tahay dawladii dadka ee loogu talagalay markaasi dadka waxaanu sheegnay dimuqraadiyadu laba kelmadood oo Greek ay ka kooban tahay sidaan taariikhda ku soo dhiganay in badan kelmadahana waa Greek or Latin kelmada Greega ama kelmada Latina oo in badan bay maxay tolay arday aan maqalay hadda waxaan yiri markaasi introduction of a democracy introduction keen waxaan wadnay waa dimuqraadiga democracy come from the two Greek waxay ka timid dimuqraadiyadu laba kelmadood which are waxa weeyaan kuwaasina the most waxa weeyaan which means people macnaheedu waxa weeyaan dawladii maxay waxa weeyaan dadka creates which means maxay tolay creates kuna waa rule xukun oo ama marka power authority maxay tolay maamul awood la weeyaan waxaan u qaybinaa marka maxay tolay dimuqraadiyadu waxa ay leedahay noocyo maxay tolay noocyadaas oo maxay tolay xaqiiqada dimuqraadiyada ah توكواد وحويا بوليتيكال إن محاها تولي وحويا النوع محاها تولي سياسة نوع أرمها بالشدة أي كاهد يسيدو كلا محاها تولي نوع دقالها أي كاهد sidoo kale waxaan soo sheegnay tables waxaan dhigi doonaa tables of a democracy dimuqraadiyadu sideedaba waxa u kala qaybsantaa laba waa indirect or ama indirect markaasi dimuqraadiyada directiga ahi waa pure democracy waa dimuqraadiyad sax ah oo muwaadiniintu marka ay dooranayaan waxay u soo footeeyaan cid ay doonaan oo si toos ah dimuqraadiyadaas u timaada oo waxa dhacda electionkii baa bilaabma deedna madaxweynayaashu way tartamaan deedna qof kastaaba isagoo xortiisa ay wuxuu doortaa cid uu doonayo indirect democracy dimuqraadiyada aan tooska ahayn ama saxda ahayn waa representative oo democracy dimuqraadiyada wakiilada hadaba sidee bay ku noqotay dimuqraadiyadani mid aan sax ahayn oo ama toos ahayn maxay tolay wakiiladu waxa weeyaan maxay tolay iyo baarlamaanku waxaan u qaybinay markaasi baarlamaanka waa maxay tolay wuxuu u qaybsamaa oo maxay tolay laba group u qaybsamaa marka baarlamaanku House of Elders waa gurigii duqaytida and House Representative iyo gurigii wakiilada guriyahaas waxa laga soo doortaa maxay tolay jamhuuriyadaha markaasi republic democracy-ga jamhuuriyadaha leh maxay tolay dimuqraadiyada republicanka ayaa representative kale ama wakiilada leh maxay tolay qolada la yiraahdo parliament oo legislation ee ku jirta sharci dejinta baarlamaanku waxa ay maxay tolay sharciga wadanka dejiyaan oo rekiiriyo constitution-ka sidoo kalena maxay tolay representative aradan ku noqon doorashadiisa si sax ayaga looma soo doorto qofka shaqo wuxuu ka kooban yahay representative-ku 82 members 82 xubnood 82 xubnood waxay ka kooban yihiin maxay tolay mid walba waxa soo doortay reerkiisa dabeedna wuxuu u matalayaa maxay tolay golaha wakiilada ama markaasi dawladdu u matalayaa dadna ninkaas wuxuu baahiyaha ay reerkaasi leeyihiin buu soo gudbinayaa waana u hadlayaa waxaana ugu jira markaasi representative maxay tolay democracy-gu ugu jira oo marka maxay tolay doorashadaasi ay dhacayso si toos ah ma dhacdo qof kastaaba wuxuu soo dooranaya reer walba ninka ay iska soo xulaan ay u arkaan inay u dhiiban karaan maxay degmo kasta waxay soo dooranaysaa marka qof ka ugu wanaagsan ay maxnaha u matali kara jamhuuriyadda ama dawladda u matali kara oo cabashada soo gudbin kara baahideedana soo sheegi kara markaas taasi sidaas aanay toos u ahayn markaasi ama dimuqraadiyad toosa tooski waxaan dhammaan muwaadiniinta oo dhan si sharci ah ugu footeynayaan maxay tolay leaderskii ama hogaamiyahoogi waxaan soo sheegnay mabda dimuqraadiga
halka waxaan kaga soo baxnay marka types of a democracy qaybaha dimuqraadiyadu lahayd labadaas oo qaybsantaa maskaxda ku arday inay u qaybsanto two types labada qaybood oo mid tahay direct midna ay tahay indirect waxa weeyaan pure democracy dimuqraadiyad sax ama saafiya dimuqraadiyada kalena ay tahay maxay tahay indirect or ama representative democracy in waxaan gelinaa markaas hadana in maxay tahay mabda'a ay dimuqraadiyadu leedahay mabda'a dimuqraadiyadu leedahay shan qodob ku sheegi doonaa casharkeena maxay tahay qofku inuu si xor ah hadli karo iyo xorriyatul qowlka maxay tahay dastuurka wadanka sidoo kalena maxay tahay mudnaanta ay dimuqraadiyadu leedahay baan sheegi doonaa mabda'a dimuqraadiga hadaba waxa weeyaan maxay tahay mabda'a qof kastaba siinaya xorriyadiisa xorriyadaas oo ah inaad halka doonto aad socon kartid ganacsiga doonto aad furan kartid cid aad doontidna aad dooranaysid waayo marka aad adigu soo dooratid leaderka qofka aad doonaysid hadhow toole markaasi mujtamacaasi cabasho ma keenayaan waayo maxay toole go'aankii dawladda waxaan u jeedaa madaxweynaha ama dawladooda ugu talinaysaba iyaga meesha keenan soo go'aamiyay marka dimuqraadiyadu hadana waxay leedahay weakness daciifnimadaas waxa kamid ah in ay qaybta majority-gu ay noqdaan dictatorship micnaha qaybta dadka inta badan ay noqdaan maxay toole kaliya taliyayaal ama markaasi ay arrin dictatorship niba in qodobka labaadna waxaan sheegaynaa inuu kor u qaado markaasi musuqmaasuqa iyo maxay toolay musuqmaasuqa markaasi iyo xisaabarinta waxyaabo noocaas qodobka kalena waxaan yiri waxa weeyaan in maxay toolay si fudud loo heli karin maxay toolay shakhsiyaad markaasi daacada ama maxay toolay anshax guud oo wanaagsan in si fiican loo heli karin waxaynu ku soo gabagabeynay markaasi in qodobka u dambeeya in ay dimuqraadiyadu maxay toolay aan maxay toolay sidoo kalena wanaagsaneyn aanan maxay toolay lahayn waxtar halkaasi waxaanu ka sheekeynay dimuqraadiyadii iyo qaybaha aynu ka dhigan doono dimuqraadiyadu waxay tahay mar labaad waxaan xasuusin doonaa inuu chapterku yahay chapter 6 chapterkii 6aad ee galaaska maxay toolay saddexaad ee ama galaasida form 3ga democracy and human rights waxaanu ku dhiganaynaa abeenidii dimuqraadiyada iyo xuquuqul insaanka ama xuquuqda bini'aadanka hadaba dimuqraadiyadeen ku horeyn xuquuqda bini'aadanka ama xuquuqul insaankuna way noo dambeyn doontaa introduction to democracy wa hordhaca dimuqraadiyada Athenian were the first people established a form of a democracy dadka reer Athens waxay ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee maxay toole aasaasay dimuqraadiyada the people of Athens wanted dadka reer Athens waxa ay doonayeen to rule themselves in iyaga laftirkooda isku taliyaan and have a not king or a queen ama aanay u talin boqorad ama boqor therefore sidaa darteed democracy come from dimuqraadiyadu waxa ay ka timi two Greek words laba kelmadood markaasi oo Greek ah which are macnaheedu noqon doono demos waa maxay markaa which means people macnaheedu wuxuu weeyaan dad creates which means rule waxa tole creates macnaheedu waxa weeyaan xukun or ama power authority maxay tole markaasi maamul leh therefore sidaa darteed beenile dimuqraadiyadu can be simple define waxaan si fudud ugu sharaxaynaa as the rule of the people inay tahay sharciga dadka democracy is a form of a government dimuqraadiyadu waxa ay leedahay maxay tole qaabka dawladaha where political decision hadaba go'aanka siyaasadda waxa soo gaara waxay ku soo gaaraan in a directly in the hand of the citizens waxa micnaha go'aanka siyaasadda si toos ah gacmaha ugu haya markaasi muwaadiniinta democracy is a government of the people dimuqraadiyadu waa dawladii dadka for the people ee lagu talagalay dadka and by the people waa dawladii dadka dimuqraadi hadaba is a form of a government waxay leedahay nidaamka dawladda in which all citizens dhammaan muwaadiniintu hadaba can a vote waxay awoodaan inay maxay tole codeeyaan aan haafay equally say si isku midna waxa uu yiraahdeen what happiness marka ay dhacayso codeyntaasi that carry out when fuliyaan directly u fuliyaan hawshaasi si toos ah or indirectly ama si aan toos ahayn the following are the main aspect hadaba waxa jira noocyo ay leedahay ama arrimo of area democracy oo ah markaasi xaqiiqda dimuqraadiyada noocyadaas waxa weeyaan beenidii political aspect nooca markaasi siyaasadda iyo waliba social aspect nooca maxay tole ay bulshada iyo waliba economic aspect nooca dhaqaalaha ee markaasi bulshada political aspect waa nooca koobaad political aspect of a democracy maxay tole noocan maxay tole siyaasadda dimuqraadiyadu refers to system of a government waxay tixraacaysaa nidaam dawladeed as the consent waxaanay wadaagan go'aanka of the government dawladda the suit iyagoo doonaya when a making political decision in ay sameeyaan go'aanka markaasi siyaasadda the people state consent waxa ay go'aaminayaan expression u muujinayaan directly or indirectly si toos ah ama si aan toos ahayn
waxaan soo sheegnay inay jireen laba qaybood oo direct or indirect. Directida ayaynu markaasi waxay sida directigi waxa weeyaan electionkii leaderska ama hogaamiyaha madaxweynaha oo dhammaan muwaadiniintu ay u soo dooranayaan markaasi si toos ah oo sharciya maxay tole madaxweynaha ama hogaamiyaha wadanka. Or indirectly waxaan ku soo sheegnay inay tahay representative dimuqraadiyad representative-ka waxaan taasi mid sax ma aha marka waxa la soo doortaa ID2 member maxay tole 82 xubnood 82 xubnood waxa laga soo doortaa maxay tole degmooyinka dhammaan wadanku ka kooban yahay through their elected representative markaas waa marka la dooranayo representative ama wakiilada under this aspect marka aan joogno arintan. Democracy means dimuqraadiyadu macnaheedu waxa weeyaan government dawlad by the discussion dawladaas oo ah wada hadal and public opinion iyo fikrad dadweyne. Example tusaale ahaan Republic of Somaliland hadii soo qaadano Jamhuuriyadda Somaliland dawladeedu waa dawlad ku dhisan discussion wada hadal and public opinion ama maxay tole fikrad dadweyne. Tusaale ahaan waxaan u soo qaadanaa hadana imika wada hadalka ay Somaliland wada leeyihiin waxa ay ka tashtaan maxay tole dawladdu ilaa ay cuqaashooda waxay ka wada taliyaan inay wada hadal la sameeyaan Somaliland waxaan jeedaa Soomaaliya maxay tole iyagoo kala hadlaya markaasi mabda'ooda dimuqraadiga ama goon isku taaga maxay tole hadii xaalad wadanka ku timaado maxay tole wada hadal baa la bilaabaa guddi baa loo saaraa si ay maxay tole arinta xal uga soo gaaraan sida maxay tole COVID-19 sida loogu saaray markaba guddida arintaasi ay xal u hayaan markaasi waa dad ama mujtamac ku dhaqan wada hadal iyo waliba maxay tole fikradii dadweynaha la isku soo ururiyay marka dadku wada hadlaan ay doodaan discussion sameeyaan maxay tole fikradoodana la isku keeno maxay tole fikirka ugu wanaagsan ee maxay tole la qaadanaya. Dimuqraadigu maxay tole waxa laga yaabaa systemkeeda inay ka aaminsanahay dawladda dimuqraadiyadu dadka islaamka inay ka aaminaan inay qaldan tahay mabda'eedu. Horta dimuqraadigu hadii doonayno inaynu macnaha dhinaca diinteena ku safayno maxay toy ma jiro mabda dimuqraadiya oo markaasi ay isku xukumi karaan wadamo islaama sida Somaliland oo kale laakiin dastuurku wuu saxaya oo waxaan sheegi karnaa quraankeena kuma qorna traffic sharci oranaya traffiga ama wadamada gawaarida hal kala duwo traffiga keedoo kale markaas maxay tole dimuqraadiyaduna waa mid dadku wax sharci ay sameeysanayaan inay kuna dhaqmayaan markaasi faa'iidada oo asaas weeyaan dimuqraadiga wanaageedu wada hadal iyo fikrada dadweyne. Social aspect waa dhinaca bulshada the social aspect of democracy dhinaca markaasi mujtamaca dimuqraadiyadu stressed the value of human dignity waxa ay kor qaadaa ama kicisaa qiimaha maxay tole mujtamaca sharaftiisa marka. Democracy is a view dimuqraadiyadu waxay aagtay as a way of a life habka ay u noolaanayaan in which every individual shakhsi kastaana is a free oo xor noqon doono. Waan soo sheegnay in qof kastaaba uu ganacsigu doono furan doono maxay tole iskuulku doono uu gali karo maxay tole halku doono uu degi karo maxay tole cid uu doono uu dooran karo cidii uu dooranayna aanay imanahayn markaasi dawladda ama hogaamiyaashooda to organize ay isku soo abaabulayaan suxara is a own life style maxay tole habka u noolaanayaan expressing opinion inay muujin doonaan fikradahooda oo qof kastaba fikirka uu qabo uu si bayaan u sheegi karo oo la caabudinahay marka. Freedom of association waxay xor yihiin in ay sameeysan doonaan ururkay doonaan markaasi ay soo bandhigi karaan oo dadku ka cabsanayn in maxay tole dawladdu xidho ama la qabsado marka. And also sidoo kale give others chance of to choosing there mar labaad hadana waxa la siinayaa chance kale oo lagu soo doorto ay siinaysaa markaasi noocaasi arrimaha bulshada ee dimuqraadigu uu leeyahay marka. Economic aspect dhinaca dhaqaalaynka eegi doona the economic aspect of democracy dhinaca dhaqaalaha ee dimuqraadiyadu ay ujeedadoodu waxa weeyaan to provide inay bixiyaan equal opportunity fursado isku mid ah to all citizens ay siiyaan dhammaan muwaadiniinta oo dhan. Opportunitiska arday dadka la siinaya ama fursadaha isku midka waa maxay tole marka ay dadka aday shaqo noqoto waa in ay dadku u sinaadaan fursadaha shaqo waa in mujtamaca loo soo wada bandhiga inay shaqo soo baxayso dadna waa inay u tartamaan dibadna markaasi si xora qofkii ugu guuleysto marka waa inuu fursadaasi shaqada u helo. Hadii mid caawin ay dawladdu sameynayso waa inay maxay tole si equal ay u siisaa fursadaasi ay sida equalka ay u helaan marka dadka waa in loo siiyaa si isku mid ah fursadaha muwaadiniinta markaasi wadanka. Seeks to eliminate waxa ay doonayaan in ay tirtiraan exploitation ku dul noolaanshaha of humans bini'aadanka ama dhigmiiradka bini'aadanka waxa weeyaan bini'aadanku inta hooseysa inta sareysa in aanay ku danaysan markaasi oo aanay ku dul noolaan oo aanay maxay tole dhigmiirad meesha aanu iman waa in meesha laga saaraa la tirtiraa waayo maxay tole mujtamacu haduunu kala dambeyn lahayn qof kastaaba arintiisa khaas ku horumarsanaya dadna cid doona ku dul noolaanaya with the flowing humans in means
taas iyaga oo ay u siman yihiin markaa of production bini'aadanku wax soo saarka waa isku mid marka hore waxa la yidhi dadku waa macdan maxay ahayd toolay macdantu maxay tolay xagga abuurka umadu way ka siman tahay laakiin marka dambe ay maxay ahayd toolay xagga wax soo saarka ku kala duwanaanayaan ay noqon doonaan maxay ahayd toolay qaarna sida dhagaxa buurtaasi oo kale aan waxba tarahayn ama dhagaxa macdanta iyo sidoo kalena dhagaxa dahabka oo kale therefore sidoo kale nationalized waana ay dawladdu dadkan qaramaysaa markaasi an other methods waxa jira hab kale abala ay ku codsanayaan to reduce inay dhimaan inequality sinaan la'aanta between rich and the poor taasina waxay ku codsanayaan inay dhimaan maxay toolay sinaan la'aanta dadka hodanka iyo dadka qaniga in ay countries wadanku weerarda democratic government waa nidaam dimuqraadi in ay placed the right of the citizen waxaana meel iska dhigan markaasi xuquuqda markaasi muwaadiniinta ay guaranteed iyagoo damaanad qaaday qof kasta muwaadina nidaamka dimuqraadigu in maxay ahayd toolay iyaga damaanad qaaday xuquuqdooda sidoo kalena waxa ay meel iska dhigan markaasi xuquuqda dadka ay muwaadiniinta ah ee u shaqeynaya nidaamka dimuqraadigu types of a democracy waa nidaamka dimuqraadiga there are various types of a democracy waxa jira qaybo kala duwan oo dimuqraadiga parts of the world ay ku dhaqan yihiin qaybo kamid ah adduunka waxaan markii hore soo sheegnay markii typeska soo sharaxaynay in ay jiraan adduunka qaybo ku dhaqan dimuqraadiga iyo qaybo ku dhaqan dictatorship kaligood talisnimo iyo sidoo kale qaybo ku dhisan maxay tolay jamhuuriyo sidoo kale qaybo ku dhisan maxay ahayd tolay monarchy ama boqortooyooyin waxaanu sheegnay maxay toolay dawladda ugu horeysay ka hana qaadayna Greek Athens ahayd tusaale waxaanu soo qaadanay dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Somaliland oo Republic of Somaliland ah jamhuuriyadda markaasi dimuqraadiya dictatorship tusaale waxaanu uga dhignay boqortooyada Sacuudiga iyo boqortooyada iyo waxaan jeedaa wadamada Scandinavia la isku yiraahdo waxaan soo sheegnay mabda kale isagana emperador la yiraahdo oo markaasi indheer tamba dadka China ay ku dhaqmaan markaasi waxa weeyaan qaybaha kala duwan ee adduunka ku dhaqan baynu markaas sheegnay in some country waxa jira waxoogaa wadana more than one type of a democracy waxa ay ku dhaqan yihiin maxay tolay hal qayb oo dimuqraadiya found across the world waxaana uga gudbeen markaasi adduunka kale directly hadda waxaan u gudbaynaa direct or pure democracy dimuqraadiyadda sax maxay ahayd tolay saxda ah markaasi ama dimuqraadiyadda saafiga ah this type of a democracy qaybta means where the citizens vote muwaadiniintu waxay u codeen of a law sharciya and select officials waxay soo doortaan saraakiishi more directly political decision in badan go'aanka siyaasadda iyaga haya are made the people directly waxa si toos ah u sameeyay markaa mujtamaca dadka rather than halka they are selected representative ay soo doontaan wakiilada this are most suitable a small political community habkaasi uu yahay habka ugu yar maxay tolay mujtamacu ugu jira siyaasadda indirect or representative democracy waa dawladda aan toos ka ahayn ama maxay tolay wakiilada this type of democracy qaybahan dimuqraadigu is where the citizen muwaadiniintu not involved directly kuma lug laha si toos ah who elects kuwa soo doorta those who will a government democratic republic maxay tolay jamhuuriyaddan maxay tolay dimuqraadiga representative democracy maxay tolay golaha wakiilada dimuqraadiyadeedu citizens muwaadiniinta choose waxay soo doortaan representative themselves wakiilada laftarkooda parliament act markuu baarlamaanku qabanayo as the basic institution maxay ahayd tolay hay'adaha aasaasiga marka in this type qayban of democracy the elected waxa soo doortay by the decide ay soo go'aamiyeen go'aanka or mandate to act ama waxay qabtaan waajibaadkooda their own with a necessary waxaana laga maarmaana consulting of this elected them in ay la taliyaan kuwii u taliyay markaasi iyaga waxaan markaa they are believed waxay aamineen to be work inay ka shaqeeyaan for a best interest maxay tolay of the electorate maslaxada markaasi ku codbixiyaasha ama kuwa maxay tolay wax dooranaya really xaqiiqdii this mean the government macnaha dawladdu beesir wuxuu ku saleysan yahay on elected representative doorashada wakiilada that elected may to do the following the assistant administration waxaana u qabtaan dhinaca doorashooyinka arrimaha soo socday maamulka ka caawiyaan maxay tolay wakiiladu arrimaha soo socda ay ka caawiyaan markaasi maamulka kuwaas oo ah arrimaha doorashada to koowaad appointment waa maxay tolay ballanqaad talabaadna nomination oo ah magacaabid saddexaad u hayaan waxa weeyaan constitution democracy dastuurka dimuqraadiga iyo waliba mirrors of a democracy iyo mabda'a dimuqraadiga halkaas in ku joojinna markaasi casharkeeni dimuqraadiyadda waxaan in badan ka soo sheekaynay mabda'a dimuqraadiga iyo maxay ahayd tolay labada kelmadood halka yimaadeen dimuqraadiyaddu markii horeysay halka ka hana qaaday waxaan soo sheegnay qaybaha dimuqraadiyaddu u qaybsanto noocyada dimuqraadiyadda marka casharkeeni maxay tolay lesson 5 maxay tolay dimuqraadiga chapter 6 na halkaas inuu ku eeg yahay insha Allah taala wayno iyo nagasti lesson
waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warware